magaalada Garowe caasimada maamul goboleedka Puntland waxaa si weyn loogu soo dhaweeyay wafdi ballaaran oo hogaaminayo madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxamuud waxa halkaas ku soo dhaweeyay garoonka diyaaradaha ee General Maxamed Abshir Garowe madaxweynaha maamul goboleedka Puntland Mudane Saciid Cabdullaahi Dane madaxweynaha ku-xigeenka Puntland Axmed Cilmi Cismaan Crash wasiiro xildhibaano heer dowlad goboleed iyo sidoo kale qaybaha kala duwan ee bulshada ku dhaqan Garowe safarka madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxamuud ee Puntland ayaa ku qotoma oo kurgelida xaaladda abaareed iyo deegaanada Puntland dardargelinta dibashiinta xoojinta wada shaqaynta heer federaal iyo heer dowlad goboleed iyo sidoo kale dhageysiga talooyinka la xiriira dowladnimada iyo sidoo kale ka qayb qaadashada bulshada Puntland taasoo aasaas u ahayd higsiga madaxweynaha Soomaaliya madaxweynaha Xasan Sheekh Maxamuud ayaa kulamo la qaadan doona madaxda dowlad goboleedyada Puntland waxa ka qayb galaya kulankaasi qaar kamid ah waxgaradka ismada dhaqanka ganacsatada dhalinyarada iyo sidoo kale haweenka iyo culimada si uu u dul istaago xaaladda bulshada Puntland iyo baahiyaha ay qabaan doorka horumarineed ee dalka iyo sidoo kale hirgelinta dowladnimo wafdiga madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxamuud waxa kamid ahaa wasiirka arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga Mudane Abshir Umar Huruse wasiirka dowlaha madaxtooyada qaranka Abshir Maxamed Ahmed Bukhari la taliyaha madaxweynaha ee arrimaha federaalka Mudane Ahmed Abbas dastuurka Mudane Cabdiraxmaan Cabdullaahi Baadiyo la taliyaha ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ee Soomaaliya ee arrimaha dibashiinta Mudane Cali Cabdi Awaare agaasima ku-xigeenka madaxtooyada qaranka Mudane Maxamed Aamin Sheekh Usmaan madaxweynaha iyo wafdigiisa ayaa kadib loo galbiyay qasriga madaxtooyada Puntland ee Garowe Xuseen Xasan Cadde telefishinka caalamiga Kalasan